naadiga halkaraan ayaa munaasabad ballaaran oo soo qaban qaabiyay dhalinyaro isaga kala timid Boorama Hargeysa iyo Berbera munaasabadan oo lagu soo bandhigay barnaamij la yiraahdo Wiili Halyeyga Hankale ayay ka hadleen aqoon-yahano dhalinyaro ay kuna soo bandhigeen mowduucyo muhiim u ah dhalinyarada dhiirigelin oo ah inta Hankale isweydiin mudan qofku inuu isweydiinaya gardaamooyinka nololeed la sheegay maxay horta gardaamooyinka nololeed caadiyanba waa kuwa khalkhalkiyo khatarta geliya geed socodka qofka iyo horumarkan qofka basharka uu rabo inuu meel gaaro meel ka dhaqaaqo barnaamijka Wiili Halyeyga Hankale waa barnaamij badan lagu soo bandhigo aragtiyo aqoon isweydaarsi barnaamijkaas oo ku baxaya maaragtay qaab muuqaal aragti isku keenista waxa guddigu u ah inaan ogaano halka aan rabno diilinka aan uga hagaagi karno halka yeelida baahida aynu leenahay dal iyo dad ahaanba han abuur kasta iyo hal abuur kasta waxaa laga helayaa fikiro ku suntan waxqabadka wadajirka wanaaga iyo wanaaga ay walaalnimadu helinayso inaan helno dhalinyaro isku fikir ah kala nool meelo kala duwan kuna kala nool meelo kala duwan sida maanta dhalinyaro badan oo halkan iskugu timiday oo meelo kala duwan ka timiday creativity marka laga hadlayo waa qofku inuu ikhtiraco ama uu keeno wax cusub hanabo Soomaaliland imika waxay yeelanaysaa dhalinyaro fara badan tababaro nololeed oo inta ka badan oo ay ugu dhiirigelinaya inaynu hal yeelano lixirka barnaamijkan iyo ujeedooyinkiisa waxa isna halkaa ku soo bandhigay Halabuur Cabdiraxmaan Geestiir oo kamid ah halabuurada da'da yar ee Boorama danaan doonta ku xadanaana doonta oo Wiilinta Halyeyga Hankale mustaqbalka waxaan ka filanay barnaamijku waa inuu noqdo madal kulmisa dhalinta oo dhan taasoo dhamaan u ahaan doonta guul gobonimo badan waan ku faraxsanahay inuu fikirkayga ii fulo xubno ka kala socday naadiga halkaraan dalada Saynay iyo ururka Akmaya iyaguna si weyn u soo dhaweeyay barnaamijkan kuna bogaadiyay wiilka fikirkan keenay iyadoo gunaanadkii munaasabadaasna su'aalo lagu weydiiyay halkaasi madaxa barnaamijkan Wiili Halyeyga Hankale isla markaasna waxa uu si waafiye uga jawaabay dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen dhalinyarada reer Burco dhinaca kalena dalada Saynay ayaa dhalinyarada gobolka Togdheer kula wadaagtay hoolka Hotel Deero ee magaalada Burco lecture qiimo badan oo ku saabsan doorka dhalinyaradu ka qaadan karaan horumarka bulshada oo uu soo jeediyay Sheekh Cali Mahdi Ismaaciil iyadoo mas'uuliyiinta dalada Saynay Xuseen toddobaad kasta ay dhalinyarada la wadaagi doonaan lecture qiimo badan oo noocan ah ama waxay arkeen baahi jirta oo markaa taagneed baahidaas oo ah in dhalinyaradii Soomaaliland ay kala faraaruqsan yihiin kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba baahidaas si looga duuro ama loo baabi'iyo oo la isku xiro dhalinyarada dalka joogta iyo kuwa dibadda joogta ayaa waxa la aasaasay dalada isku xirka iyo wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliland lecture intaan bilaabay waxaan u shaqeynayaa dalada Saynay oo mowduuc runtii aad iyo aad u ballaaran oo aanan kaga badan karin hal fadhi iyo laba fadhi toona lecture-ka waxaa la yiraahdaa innahum fityatun aamanu bi rabbihim dowrka shabaabka ama dhalinyaranimadu ay ku leedahay horumarka bulshada waxaan ku soo gabagabayn doonaa tawjiihaad aan siin doono insha Allah ta'ala shabaabka Mustafa Ismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.